madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay gaaray degmada qadiimiga ee Cadalle taasi oo dhacda xeebta gobolka Shabeellaha Dhexe ee koonfurta Soomaaliya. Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh safarka waxaa ku wehelinaya xildhibaano, saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin kale oo deegaanka oo ay ku jiraan odayaal dhaqan iyo ganacsatada Shabeellaha Dhexe. waxayna halkaas soo joogi doonaan ilaa dhowr maalmood sida ay noo sheegeen ila wareedyo kala duwan. xog rasmi ah oo ay heshay caasimada online ayaa tilmaamaysa in safarka madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya uu salka ku hayo 4 qodob oo muhiim u ah kuwaasi oo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo. 4tan qodob ee sababay in madaxweynayaasha Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ay safar degdeg ah ku tagaan Cadalle ayaa kala ah. qodobka koobaad, dooda beelaha Cabdalla Caroone iyo Nugaale Caroone. maalmihii u dambeeyay waxaa xoogeystay dood ay qabeen jufooyin ay kuraasi kala dhaxayso beelaha Agoonyaro Gaabane iyo Bakar Gaabane, kuwaasi oo kala ah Cabdalla Caroone iyo Nugaale oo si guud u hoos yimaada beelweynta Harti Abgaal. waxayna dooda ku saabsaneed xuquuq ay sheegeen in laga duudsiiyay intii ay xilka hayeen madaxweynayaasha shalay booqday ee Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. labada beelood ee Cabdalla Caroone iyo Nugaale Caroone ayaa wax ku leh kuraasta ay ku fadhiyaan xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale. waxayna Jowhar iyo Muqdisho ka bilaabeen qayladaan iyo eedeyn loo jeedinayo Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh, waana sababta keentay in safarkaasi ay galaan labadani mas'uul. waxaa la filayaa inay xal u raadiyaan tabashooyinka beelahan inta ay joogaan Cadalle, inkastoo ay ku gadaaman yihiin culaysyo badan. Cabdalla Caroone iyo Nugaale Caroone waa laba jufo aan wax dooran lana dooran wixii ka dambeeyay doorashadii Soomaaliya ee 2009kii, waxaana kuraastooda la siiyay beelo kale oo ka tirsan beelweynta Mudulood sida iyagu ku doodayaan. qodobka labaad, joojinta abaabul dagaal oo ka socda Jowhar. magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa la geeyay maleeshiyaad badan oo ka tirsan beelaha aan kor ku soo xusnay ee Cabdalla Caroone iyo Nugaale Caroone, kuwaasi oo u diyaar garoobaya inaysan Jowhar ka dhicin doorasho haddii aan la xalin tabashadooda. waxaana laga cabsi qabaa inuu halkaasi dagaal ka qarxo haddii aan la xalin xiisadda hadda taagan. madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa la sheegay in Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud uu ku wargeliyay in labadani beelood ay abaabul ka wadaan magaalada Jowhar, isla markaana ay qasab tahay inay ka qayb qaataan maadaama ay yihiin odayaasha Abgaal iyo musharaxiin ka soo jeeda beesha Abgaal. qodobka saddexaad, abaabulka kacdoon ee ka dhanka ururka Al-Shabaab. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaa la filayaa in ay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaan dhulka ay degaan beelweynta Abgaal inay ka bilaabaan kacdoon ka dhan ah ururka Al-Shabaab si deegaanka loogu sameeyo horumar iyo fursado shaqo abuur ah. dhowr jeer oo hore shirar ka dhacay Muqdisho iyo meelo kale ayaa lagu sheegay in beelweynta Mudulood dhulkooda ay dhibaatooyin badan ku hayaan ururka Al-Shabaab, taasina ay ceeb ku tahay beeshan oo lagu tiriyo beelaha ugu awoodda iyo dhaqaalaha badan dadka Soomaalida. madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa bilo ka hor shir Muqdisho Mudulood ay ku yeesheen ka sheegay in dhulka ay ka soo jeedaan uu la daalaadhacayo amni xumo iyo horumar la'aan, waxaana la filayay inuu dhowaan kacdoon ka bilowdo gobolka. qodobka afraad ee ugu dambeeya, saameynta beesha Abgaal musharaxnimada Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo labadooda ah musharaxiinta ugu cadcad doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee dhacaysa sanadkan, waxa ay dadaal badan ugu jiraan inay isku xirnaan iyo kalsooni ka dhex abuuraan beelaha Hawiye, si gaar ah kuwa ay ka soo jeedaan ee Mudulood, taasi oo la aaminsan yahay in caqabad ku noqon karto haddii aanay xalin tabashooyinka dhexdooda doorashada Soomaaliya. sidoo kale waxaa la filayaa in musharaxiinta kale ee Hawiye ay dhankooda bilaabaan isku keenida beelahooda, maadaama uu jiro qorshayaal ay Villa Soomaaliya la damacsan tahay musharaxiinta Hawiye, iyadoo ay xusid mudan tahay in beelaha yaryar ee Hawiyaha ay sanadkani kicin ku wado Villa Soomaaliya. lama oga waxa uu ku dhammaan doono safarka madaxdan, hase yeeshee waa mid ka mid ah safaradii ugu muhiimsanaa oo ay galaan labadani mas'uul tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay xilka ka degeen 2012 iyo 2017.